السلام عليكم أصحابتي كلنتي isku soo noqod wanaagsan kuna soo dhawaada Ayuub Ahmed podcast iyo maanta mowduuceena isku tasho mowduuceena maanta 10kiisa qodobeen ku soo koobay isku tasho markaad akhrido aad bay u gaabantay laakiin intaa way ka macna ballaarantay waxaana ku hubaa waxyaabaha mowduucani uu ka kaalmayn doono inay ka mid tahay sidii aad kalsoonidaada u dhisi lahayd sidaad maskaxdaada u dhisi lahayd sidaad dulqaadkaaga u dhisi lahayd sidaad fahankaaga guud ee nolosha aad ka qabto iyo dadkaba u dhisi lahayd oo u hagaajin lahayd hab dhaqan nololeedkaaga uga shaqayn lahayd shakhsiyadaada u hagaajin lahayd wax soo saarkaaga kor ugu qaadi lahayd waqtigaaga iyo naftaada uga adkaan lahayd si aad u gaarto goolasha nolosha ku degan hadafyadaadana aad u xaqiijiso 90% waxa faca agtooda riyada ku ahna aad u rumayso midda koobaad waxay tahay inaad ogaato shayga sida fudud lagu helo kuguma raago shayga waarana si fudud kuguma yimaado intan kaliya fahankeedu waxaan ku hubaa haddii laf dhabar aad uga dhigto hadafyada nolosha aad rabto inaad xaqiijiso ama riyo kastoo rabto inaad rumayso inay si weyn ku kaalmayn doonto waxaanad moodaa markaynu nafahaan is eegno in qofku uu rabo wax walbaaba iyadoo sahlan nolosha inay u yimaadaan wuxuu marka si fudud uu kugu soo galo si fudud buu kaaga baxaa ilanumaad dididin umaad rafaadin umaad silcin umaad murugoon umaad ooyin ciriiri kuguma bahaynba shayga kan helitaankiisu dhibba umaad marin shaygu marka aad u soo didido ood qorshayso hawshii shayga kanaad ku hirgelin lahayd ood shaqayso ood u rafaado oo aad dadaal fara badan ku bixiso awood kastood leedahayba dul dhigta si aad u xaqiijiso qiimo iyo macno weyn buu ku yeeshaa laakiin marka shaygu si fudud lagugu dhiibo waxa laga yaabaa si fudud inaad isaga bixiso bal waxaad eegtaa nafahantaada haddii $100 noloshaada ay ku soo martay oo uu qof ku siiyey maahan midaad shaqaysatay qof lacagta uu ku siiyey waxa laga yaabaa isla markaba inaad suuqa kula orday oo wax iskaga gadgadatay laakiin tan aad u soo dididay soo shaqaysay waxa laga yaabaa inaad kala qarqarisay sidii inaad adigu nafahaantaada xataa kala qarinayso marmarka qaar waxa laga yaabaa inaad qaybna meel dhigto qorshayso ka sii fakarto sida aad yeeli doonto iyo waxaad ku bixin doonto su'aal inaad ka keento xataa waxa aad rabto inaad diibsato horta shaygan maxaan uga baahanahay iyo wixii la mid ah marka dadaalkaas oo dhan ee ficil iyo fakar bale waxaad ugu bixinaysaa waa sidii kugu soo gashay hadday si fudud oo sahlan kugu timidna si fudud oo sahlan oo macna daraabe waliba kaaga bixi hadday si adag oo rafaad iyo didid iyo tacab aad u soo martay kugu soo gashayna inay kaa baxdaa kugu adkaan doonta meeshan kama hadlayo markay noqoto mas'uuliyadaha ku saaran awlaadaada xaaskaaga ama haddii aad hooyo tahay oo keliga ilmaha aad korsanayso ilmahaaga waalidka ciddii kaalmo kaaga baahan ee mas'uuliyaddeedu ku saaran tahay kuma jirto laakiin waxaan ka hadlayaa waxyaabaha iska ciyaarta midda labaad ay tahay qof kastoo ina ka mid ah xusuusteeda inaynu la noolaano waa khasab in qofka bini'aadamka adduunkan xanuunkiisa la dareensiiyo silicuse waa doorasho qof kastoo ina ka mid ah maanta haddaynu nolosheenna fiirino qof oran kara ma jirto mushkiladii ma haysato waxaa laga yaabaa xataa haddaad shaqaysato oo maanta qof wax bartay aad tahay xoolo adduunyo ilaahay dee intii qof bini'aadamihii noloshiisa uu farxad ku dareemo ku qanco haddaad xataa haysato waxaa laga yaabaa inaad wax kala sheegato carruurtii baan ku dhib qabaa ninkii baan ku dhib qabaa gabadhaan qabaan ku dhib qabaa shaqadaan ka shaqeeya ma jecli daal fara badan baan waxaan ku keenaa maalin walba wax aad sheegato marna waa yimaysid laakiin markay noqoto qofku inuu silic ku noolaado taas waa doorashadiisa ana ku yara faahfaahiyo way dhici kartaa in ganacsigu kaa gubto way dhici kartaa in furiin uu kugu yimaado kharaar way dhici kartaa in aad xanuunsato way dhici kartaa in mushkiladaha adduunyada wax ka mid ah ay ku haystaan laakiin waxyaabahaasoo dhan dhammaantood marka la isu keeno qofku meesha ay dareenka kaga reebtaa waa qalbiga meesha qofku u ka socdaa waa qalbiga meesha qofku u ka nool yahay waa qalbiga meeshuu ka murugoodaa waa qalbiga meesha uu ka farxaana waa qalbiga marka qofka bini'aadamka isagoon waxba lagu dhufan ay indhihiisa ilmadu ka qubanayso waa fariinta qalbigu uu soo dirayo waa xanuunka qofku uu qalbiga ka dareemayo mushkiladaha adduunka ka jira waxay doonaanba ha noqdeen qofka marka ay qabsadaan meesha ay raadka kaga tagaan oo ku reebaan waa qalbiga haddii qalbiga aad u talin karto macnaha hadday mushkilada maanta ku qabsatay kugu dhacday waqtigii ay kugu dhacday waa la soo dhaafay hadda waqtigan aad joogto ama waad ka soo badbaadiyo sidaad moodaysay may noqon kuma halaagin kuma dhammaan wali waad nooshay waad caafimaad qabtaa waad cunaysaa waad socotaa
haddii mushkiladda adigu aad ka dhigto mid maalin kasta sidii maalintii kugu dhacday oo kale dareenkeedu uu yahay qalbigaaga maalin kasta waxaad dareemi doontaa xanuunkaa weeye marka tanaan u socdo ee leeyahay qofka bini'aadamkahay silic inuu ku noolaado isagaa dooran kara haddii uu jiro xanuunaad maalin walba la nooshahay ood qalbiga ka dareemayso waxaad isweydiisaa hal su'aal xalkiisu muxuu yahay mushkiladdan ma mid hadda ka hor kugu dhacday oo weli aad adigu soo noolaynayso damqinaysa nabarkeediiba mase mushkiladda tan waa mushkilad aad xallin karto tan ugu daran weliba silicyada qofka bini'aadamkahay uu ku noolaado waa marka wax uusan ka tegi karin la joogiisana xanuun uu ku qabo ay jirto tusaalahaan qof baad la socotaa dhibaatuna kugu haya mana ahan qof doonaya inuu kaa garbaxo ama rabo inuu kaa joojiyo waxa aad dhibsanaysa qalbigaaga xanuunka ku haya 90% dadku waxay qofka ka fiiriyaan kalgacalka iyagu ay u hayaan ee ma eegaan kalgacalka iyaga loo hayo iyo ixtiraamka loo hayo inta uu la eg yahay taasaa dad badan waxay sabab ugu noqotaa inay silic ku noolaadaan tani waa marka qofku haddii aad damacday inaad ka tagtana aad ka baqayso amaad qofkan kalgacalka aad u haysa dartii rafaada haddaad soo noqo istiraahadana sidan buuba hadda u dhaqmayaa ama ku diidaa laba daran marka mid dooray Soomaalidu tiraahday buu qofkaas ku jira oo dantu waxay ku qasabtaa in isagoo si xun loola dhaqmayo oo maalin walba la bahdilayo oo qalbiga laga jabinayo inuu qofka iska ag joogo taasu marka waxay ka mid tahay silicyada qofku uu doorto midda saddexaadna waxay tahay dhibaato kastood noloshaada ka cabsanayso waxa kaaga xanuunka badani waa ka fakarkeeda dadka qaar baa maskixiyan ku xanuunsada siday uga fakarayaan mushkilad aan weli u imaanin waa si saadaal xumaysanaya qofku saadaal xumadu ma wanaagsana adduunkan intaad noolaanayso ilaahay baa garanaya waxa kuu qoran ee kaydka kugu jirana ilaahay baa og dadka qaar waxay la gaartaa sidii wax la hubo oo kale inay tahay in waxa u qoran rabbi agtiisa yaala sidii in lagu soo sheegay oo kale inaad qalbiga ka dareento mushkiladdu markaa waa ku diloonaysa markay kugu dhacdo haddayba jirto ilaahay kuu qorayna mar labaad bay ku dili doontaa mushkilad kasta oo nolosha jirtaba xal bay leedahay mushkiladan xal lahayn ma jirto shay walba oo adduunka qof bini'aadama intuu qabsaday marka uu haystay qof walbaaba uu la yaabana oo lahaa talow seeba uga dhex bixi doona sidii la moodiyay kumaynan dambayn adigu naf ahaantaada waan kuu huba inay jiraan waxyaabo noloshaada cabsi kugu hayay laakiin sidii aad moodaysay aysan noqon ee sidii markii hore aad rabtay ku farxad gelinaysa ilaahay uu kugu dambaysiiyey tusaalahaan imtixaan baad u fariisatay wax badan maadan soo akhrin dadaal badan waxaad aaminsanayd inaadan bixin kadibna markii imtixaanaadkii natiijadoodii ay soo baxday ba waxa kuu soo baxday inaad dadka ugu koreeya ka mid noqotay waa laga yaabaa inay kugu dhacday adiga waana laga yaabaa qof kale ku dhacday inaad maqashay mararka qaar waxaa laga yaabaa meel aad wax ka sugaysay oo wax kaaga xirnaayeen in aad u badinaysay 99% inaysan sidaad rabto kuu noqonayn haddana sidii aad rabtay ee hore ku farxad gelinaysa inuu rabbi kaaga dhigay mushkilad walba marka ilaahay baa garanaya siday ku dambaynayso qof bini'aadama oo horta dhibaato ku waaraana ma jirto haddii hadda ku haysato waad ka bixi doontaa haddii hadda khayr iyo barwaaqo aad ku jirtana waxaad u toog haysaa in maalin uun aad ka dhex bixi doonto say doontaba ha ku timaadee dadka qaar waxay la gaartaa mushkilad aan kuba dhicinba siduu uga fakarayo inay ula ekaato sidii wax xaqiiqo ah ku dhici doona heer waxay la gaartaa xataa habeenkii uu ku qarwo oo caawa dhan intuu jiifo uu ku riyoonayo subaxii markuu soo kaco wuxuu soo kici isagood moodo mushkiladii xalayna ku dhacday daal jirkiisu uu daalan yahay waxaad ogaataa fakarka tirada badan waa lagu duqoobaa maskaxdaadana caafimaadkeeda dani uguma jirto middan afaraad fahankeedu waxay si gaara muhiim ugu tahay qof kastoo ka go'an tahay goolashiisa nolosha mid ka mida inuu xaqiijiyo ama gaaro taas waxay tahay guuldarro in aydaan is arkin qiimo kuma lihid waxa aad qiimaha ku leedahay waa in aadan isku dhiibin meeshay guuldarradu kugu heshay dadku siday u badan yihiinna meelaha nolosha ay ku haraan waa marka guuldarrada ugu horraysa ay la kulmaan ma intaasoo wakhtiga intaan ku bixiyey ayay sidan ku dambaysay waar naga dhaaf waxa kan ka soco hore uga tag imtixaankii baad ku dhacday kuma laabanayo iskuulkayga daa macallinkaas ay xasday waan ogahay waxaa laga yaabaa ganacsigii inuu kuu shaqayn waayey oo tirada ganacsi dambaba isma naqaan shaqadaydii baan ku laaban iyo saacaddii la ii hayey waad guursatay furiin buu ku dambeeyey dib dambaba uma guursanayo qofka bini'aadamka ahi marka uu nolosha tan fahan xeel dheer u leeyahay dhaqso isuma dhiibo
intay naftu kugu jirto, intaad neefsanayso, inta qorraxdaas kuu soo baxayso, intaad caafimaad qabto, intaad meelaad seexata haysato, waxaad cunto haysato, dhar aad xiranayso, cidina aysan kuu adeegaynoo maanta faleenba uusan ku surnayn, adduunyada meel lagu quustaa ma jirto. nebi yacquub calayhi salaam inteesanuu ilmaynayey markii yuusuf calayhi salaam walaalihii ay ceelka ku soo rideen, heer waxay la gaartay indhaha qaybtaa madoobay ay caddaatay, wabiyaddat caynaah uu ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamay. haddana saasoo ay tahay buu wiilashiisii wuxuu ku lahaa nebi yacquub calayhi salaam, yaa bunaya idhabuu fataxasasuu min yuusufa wa akhiihi walaa tay'asuu min rawxi illaah innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun. waxaaba qofka muslimka ah dembi ugu filan inuu naxariista rabbigii abuurtay ka quusto. xalay waxaan arkayay gabar ooyeysa tiktok igaga soo horbaxday, murugo badan dareemaysa oo leh inaan isdilaan rabaa, fiidiyogan baa iigu dambeeya. horta allah subxaana wa tacaala waxaan uga baryayaa miskiinta iyo inta la midkaaba ilaahay dhibka haysta inuu ka dulqaado oo farxad ugu bedelo, idinkuna si qalbiya ugu duceeya. qof kasto ina ka mida oo dhibaata ay haysatana ilaahay subxaana wa tacaala dhibka allah ka dulqaado, oo waxa uu rabo ee nolosha tan uu rajada ka qabo sida uu rajada uga qabo allah uga dhigo. midda shanaadna waxay tahay wakhti uma hayo, maaha wax jira. qofku waxaan la weynayn ayuusan wakhti u hayn. haddaad aragto noloshaadana isfiiri, shay kasta oo maanta aad leedahay wakhti uma hayo, macno weyn oo shaygaasi uu kula leeyahay ma jirto. qofku agtiisa waxa ku weyn wakhti uma waayo. si kastoo maanta dhan uu qofku mashquul u yahay, haddana 24 saac buu haystaaye wakhti intuu doono ha leekaade ayuu shaygaa qiimaha agtiisa ku leh siiyaa. haddaad aragto goolkaa waxaan u gaari waaye wakhti uma hayo, waxaan u baran waaye wakhti uma hayo, waxaa u samayn waaye wakhti uma hayo, waxaan qofkaa u wici waaye wakhti uma hayo, taa macnaheedu waa shaygaasu muhiimadda uu kula leeyahay ama qiimaha agtaada uu ka joogaa aad u yar. midda lixaadna waxay tahay in aadan faraxsanayn adiga iska dhaadhacsiiyey ee intii qof bini aadamihii uu ku farxo waad haysataa. sow ma neefsanaysid, sow biyo cad ood cabto ma haysatid, intaa ka badan baan hubaa inaad haysato. sow dhar ma gashanid, miyaad qaawantahay, sow habeenkii hurdo macaan ma seexatid. xataa haddaadan guri haysan, dhulkaa ilaahay meelaad ka seexato ma haysataa. alxamdu lilaah. qofku sidiisaba inta uu indhihiisa u taagayo wax ka maqan ama bini aadamka kale waxay haystaan, wuxuu ku waayaa farxadda iyo degganaanta qalbigiisa. bal gacmahaaga fiiri, gacantaada midig 5 farood baa ku yaal, gacantaada bidixna 5 farood baa ku yaala. bal labada gacmood haddii suulasha lagaa jaro, xanuunka marka laga soo tago, sidee baad bakeeri aan dheg lahayn u qabsan lahayd? wax fog oo kaleba iska daa. indhahan aad haysato haddii hal midoo ka mid a lagu yidhaahdo intaasoo bilyan oo dollar baa lagu siin ee ha lagaa bixiyo, ma yeeli lahayd? maya. bal ka warran haddii lagu odhan lahaa xayawaanaadka kan u quruxda badan adigu kaa rabtid dooro, ha lagu ekaysiiyo, ma yeeli lahayd? maya. nicmooyinka aynu haysanno inta aynu dafirayno ama aynaan u fiirsanaynin ee meelo kale aynu fiirinayno, qalbigeenna qanaacadu way ka guuri. farxad la'aan baynu ku noolan ilaa marka dambe calaacalku uu kula gaaro maxaa rabbi sidan igu gelaya. qofka bini aadamka ahi marka waxa uu haysto uu ka mahadin waayo, marka waxa uu haystaa ay la weynaan waayaan, qalbigiisu muruga kama dhammaado. waxaad haysata ha kuu muuqdeen, aqoonta inta aad ka joogto ha kula weynaato, quruxda ilaahay uu ku siiyey muuqaalkaaga ku qanacsanow, xoolo intaad ka haysato maanta alxamdulilah ku dheh. meesha aad joogto hamoodin meelaha kale inay kaa fiican yihiin. meel kastoo adduunka ku taallaba dhib baa yaal. waan ogahay dad badan oo idinka mida oo waddankii jooga waxaad aaminsan tihiin haddii qurbaha aan tegi lahaa wallahi noloshu way ii kala kici lahayd. badanaa mid sidaasoo kale lahaa, laakiin inta jooga ma shaqaysta ah oo siyaasad iyo sidaad adigu hadda ciyaaraha laga yaabo inaad Afrika ugu daawato, meelaha isaga wareegato, aadan u shaqaysanin, baaga muudo u tahay, shaqooyinka qaar uga faanayso, kuwa badanoo sidaa iyo ka daran ah baa intaba jooga oo ma shaqaystayaala, noloshoodii ka quustay, isdhiibay, waddanka ay dhex joogaan xataa luuqadiisii aan si fiican u aqoon. hamoodin marka in adigu meesha aad joogto xaaladda aad ku sugan tahay haddaad ka tagto inay isbeddelayso. qofka isbeddelkiisu waxa uu ka bilowdaa waa naftiisa. ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim. naftaada isbeddel marka aad la doonto ood naftaada ilaahay ku xirto oo waxaad haysata ku qanacsanaato, farxad aan dhammaad lahayn
intii dii qof bini aadamii uu adduunkan farxad ku noolaado ayaad ku noolaan doontaa. midda toddobaadna waxay tahay rajada aad ka qabto inaad hesho waxa nolosha aad rabto ka quuso haddii aadan ficil la iman. adduunku waxa uu ku socdaa waa ficil. adduunku waxa meesha uu joogo maanta uu ku gaaray waa shaqo. rajo keligeeda wax ficilihii uusan la socon quus baa la yidhaahdaa. qofku marka uu wax rajaynayo waa inta ilaahay isagana uu saaray inuu la yimaado. ilaahay soo inama irsaaqo, soo ma awoodo inuu ku irsaaqo adoon far dhaqaajin. haddana saasoo ay tahay rabbi isagoo irsaaqadda bixiya ayaa lagu yidhi haddana raadi famshuu fii manaakibiha wakuluu min risqi. salaada jumcada markaan tukanno dhaqaaqaa la yidhi wabataquu min fadliillah. qofka muslimka ahi in uu shaqaysto oo xalaal miirad noqdo oo uu tabco adduunkan sidiisa maxaa lagu keenay? minad iska fadhido, meelaha iska taagtaagnaato. maye adduunkan shaqaa lagu keenay. jannada rabbigeen uu u diyaariyey addoommadiisa inta hagaagsan kuwa allahayna ku daro oo ceebaheenna allaha asturo oo dunuubteenna allaha cafiye. ma waxay kula tahay rajo keliya in lagu gelayo oo wax camali uusan jirin? waa maya. qofka muslimka ahi marna waa cabsan marna rajaa ku jirta. labadaa inta u dhaxaysana camal wanaagsan buu ku dadaalay. haddaba rajadaada ficil ku dar oo dadaal la imow si waxa aad rabtaa ay kuugu rumoobaan. midda sideedaadna markaad tahay qof naftiisa si fiican u yaqaan cidna ugama baahnid inay kuu qirto waxa aad tahay. kalsoonidu waxay ka mid tahay tiirarka ugu waaweyn ee qofka bini'aadamkaahi uu wax meel ku mariyo. markaad aqoontaada iyo kalsoonidaada, muuqaalkaaga, fikirkaaga, maskaxdaada markaad ku qanacsan tahay, qalbigaagana ay kalsooniyi ka buuxdo, waxaan kuu hubaa meel fog inaad nolosha gaarayso. qofku marka kalsoonidu ay ku yar tahay badi yuu ka raadiyaa. bini'aadamka kale inay shacabka kuu sacbatumaan, inay kuu qiraan waxa aad tahay, inay ku yidhaahdaan waxaasaad ku fiican tahay. haddii ay ku yidhaahdaan waxaasaad ku xun tahayna waxay 99% u badan tahay inaad faraha ka qaaddo. badanaa qof gool u deganaa waxa keliya ka reebina ay noqoto hadal uu qof yidhi. bini'aadamku in badanoo ka mida inaad ka horumarto ama nolosha tan aad ka sarrayso kuuma oggola. laga yaabay inay kuu dhoolla caddeeyaan, laga yaabay inay kuu qoslaan, laakiin xaqiiqo qofna qalbiga kama jecla inaad meel sare gaarto, inaad isaga ka horumarto. markaad bini'aadamka ka qarsato fikradahaaga ood ka qarsato waxyaabaha nolosha tan aad rabto inaad xaqiijiso oo goolashaada aad qarsato oo jacaylkaaga aad qarsato oo waxa ilaahay ku siiyey dheeraadka aad ka qarsato, hubaal waxaad arki doontaa adoo wax kastoo ilaahay ku siiyeyba ku qanacsan. haddaadse bini'aadamka uga sheekayso, internetka soo dhigto, meel walba la taagnaato, waxaad arki doontaa maalinba maalinta ka dambaysa iyadoo nusqaani ay ku dhacayso. haddaba naftaada kalsooni buuxda ku qab. waxaanad ogaataa qof bini'aadamu kalsoonida la dhashay ma jiro. qof walbaaba kalsoonida waxa uu ku bartay waa in uu waxa uu ka cabsanaya isku dayey. shay walbood maanta ka cabsanaysood isleedahay kalsooni buuxda ma qabtidoo taasaa kaa hortaagan. waxa keliya ee naftaada la gudboonay kaaga baahantahay waa inaad isku daydo oo keliya. haddii aad ku talagalsan tahay inaad guul darraysan karto, haddii aad ku talagalsan tahay in shaygani uu kuu suurtogeli karo, haddii aad ku talagalsan tahay inay macquul tahay labadaa meel u dhaxaysa inaad ku dhacdo, waxaan kuu hubaa waad ku dhiiran doontaa waxa maanta noloshaada aad rabto inaad qabsato. midda sagaalaadna waxay tahay inkastoo ereyga balwad labada dhanba loo isticmaali karo, haddana balwad qofka bini'aadamkaahi uu yeesho tan ugu xumi waa inaad raaxa ku jirto. laakiin ma qof raaxa neceb baa jira? maya. aniga nafahanteeda kula hadlayaba waan jeclahay raaxada, laakiin tanaan ka hadlayo waa tan qofka ka hor istaagta inuu wax qabsado. waa tan qofku uu telefishin iska daawanayo, waa tan qofku social mediaha uu iskaga jiro, maalintii oo dhan wakhtigiisa uu dayacayo. shaqooyinka qaar adoo heli kara inaad ka faanayso adoo faqriya. laga yaaba inaad saaxiibada ka shaxaado waxaad telefoon ku shubanayso. waxaa laga yaabaa inaad saaxiibada shaaha ka shaxaado. maalintii oo dhan waad wareegan. habeenku markuu kuu soo galo adoo daalan baad guriga iman. waxaad ku daashayna ma taqaanid. sannadahan ku dhaafaya, asbuucyadan ku dhaafaya, saacadahan ku dhaafaya, markii dhammaantood isu tagaan waxaa jira wakhti aan garkaaga tima ku oolin, laakiin hadda tima kaa soo baxay. waad socotaa, wakhti baa kugu socda, maalintii oo dhanna waad wareeganoo lugahaagaasi ma joogsanayaan. haddana wax horumar ah oo la taaban karo noloshaada aad samaysaa ma jiro. waxaa laga yaabaa inaad calaacasho oo tiraado nolosha tan see wax uga beddelaa. waxaa laga yaabaa in aad dacwo ka tahay dhulka aad joogto. waxaa laga yaabaa inaad dacwo ka tahay dowladda markaa jirta. waxaa laga yaabaa mararka qaar inaad eedayso hooyada, aabbaha, adeerka, dadka qaraabadaada iyo wixii la mida. laakiin naftaada mas'uuliyaddeeda weli inaadan qaadin.
mas-uuliyaddeeduna xaqiiqa ahaan adiga ay ku saaran tahay dantaadu adiga ay ku sugayso welina aad iska qoslayso iska sheekaynayso rajada keliya ee kugu jirtaan ay tahay maalin uun bay xaaladdu isbedeli doontaa adoon wax ficila aan la imaanayn midda ugu dambaysa tobnaad waxay tahay inaad ogaato riyadaadu waa yoolka kama dambaystaheed u socoto hadafkaaga xooggiisa waxaad dul dhigtaa tallaabada ugu horraysa inaad qaado tallaabada ugu horraysa ee qofku uu qaado marka uu rabo riyooyinkiisa mid ka mida inuu gaaro waa tan ugu muhiimsan 99% waxaa dad badan keena inay riyadooda xaqiijin waayaan waa baqdinta ama cabsida ay shayga ka qabaan haddii 100% lagu damaanad qaadi lahaa mid riyooyinkaaga ka mida inaad xaqiijin karto maskaxdaadu see noqon lahayd qalbigaagu see noqon lahaa fakarkaagu see noqon lahaa inaad u dhaqaaqdo inaad iska dayso inaad ka habsaanto ma ka fakari lahayd dabcan maya qof kasta oo adiga maanta kula mida oo xaqiijiyood la yaaban tahay sidaad maanta u baqayso shalay u baqay waxa geesinimada ku abuurayna waa intuu isgeliyay inuu shayga u dhaqaaqay waqtigeeda siiyay dadaal ku bixiyay joogteeyay iyo wixii la mida haddaad adiguna taa samayso xaqiiqa waad gaari karaysaa qofka bini'aadamka marka naftiisa uu damco inuu dhiirigelinta ugu xooga badan isagay ka timaada haddaadan adigu dooranin oodan gudaha naftaada iska carbin qof kale hadal uu ku yidhi waxba kaama bedelayo waxaad ogaataa waxa kuugu kulule adduunka ku soo maraya waa geeri iyaduba way ku sugaysaa farahaaga mid ka mid a hadday la kaaraysa xanuun dartii waad la tacaashaa dhakhtar baad aadaa ilaahay baad baridaa qur-aan baad ku tuftaa haddii intaasoo dhan weli xanuun aad sii dareemayso bini'aadamka kale ayaa tirada ii duceeya haddii intaa ay kuu sii duceeyeen kadib haddana xanuun aad sii dareemayso bal waxaad raadisaa qof fartani sidanoo kale ay u xanuuntay waxaasoo dhan tusaalan kuu siinaya laakiin sababta aad intaasoo dhan u maraysaa maxay tahay waa sidii xanuunka farta kaa haya uu kuu dayn lahaa waa sidaad u caafimaadi lahayd marka riyadaadu ay ku hor taallo ama hadafkaagu uu ku hor yaallo maalin walbana uu sidaa kuu soo fiirinayo aadna ka dooranayso wax kaloo aysan dani kuugu jirin naftaadana aadan isku tashanaynin waxaan kuu hubaa cid kuu soo socota oo wax kuu qabanaysa oo garabka intay ku qabato ku hagayso waddada aad maanta noloshaada rabta inaad wax ku xaqiijiso kugu toosin doontaa ma jirto ee naftaada u kac dhammaantiin intaynu podcastigan midka xiga dib ugu kulmayna hadday nafteedu gaarto waana ayuubo idinla wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu